waxaa lagu waabiristay dhabaqa rasaasta xaafadaha degmada Cabdicasiis gaar ahaan xaafadan Miranaaye ee aan hadda kala soo waramayo dadka ayaa sheegay in habeenkii xalay ahaa oo idil ay xabadka dhulka ku hayeen marka loo fiiriyo jugta culus ee la isku adeegsanayay labada dhinac hadda waxaan idin kala soo hadlayaa hooyga madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana gurigan xalay ilaa hadda ku socda xabado aad u culus ilaa hadda ma jirto xal aan xabad ahayn oo labada dhinac waxaa la soo weerinayaa beesha caalamku inay ka hadashay arintan gaar ahaan qaramada midoobo oo ay sheegeen inay aad uga walacsan yihiin waxa ka socda gudaha magaalada Muqdisho weerarkii galabnimadii shalay ku bilowday Xasan Cali Kheyre iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ilaa hadda oo waagu u bariyay ku socda ilaa haddana ma jirto xal aan xabadaas ahayn oo labada dhinacba ka dhacaysa banaanbaxa maanta ayaa loo asteeyay in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradku ay isku soo baxaan ha yeeshee xabadii xalay ilaa hadda ku socotay lama oga